11 bisha November ayaa loo aqoonsaday maalinta doobka Single Day. xuska maalintan waxa uu ka yimid dalka Shiinaha wuxuuna ku sii baahayaa caalamka oo idil. doomnimada ama in qofka nolosha lamaana la'aanta ah uu ku sii jiro muddo waxaa laga haystaa fikrado kala duwan. doobabka gaamuray waxay sheegaan in fursad ay haystaan kuna horumarin karaan noloshooda. qaarkood waxay yiraahdaan waxaad u baahan tahay inaad barato marka hore naftaada oo aad jeclaato ka hor intaada qof kala jeclaan. waxay kaloo yiraahdaan doomnimadu waxay awood ku siinaysaa inaad diiradda saarto inaad noqoto nambarka koowaad. waa sida doobabku aaminsan yihiin. aragtidan waxay mucaaradnimo kala kulantaa lamaanayaasha iyo kuwa aan ku qanacsanayn doomnimadooda. maalinta Singles Day waa fasax Shiinaha waxaa bilaabay 1990kii jaamacad ku taal dalkaasi oo fasaxi jirtay ardayda fasax iyada aan magac u lahayn. 4 arday ayaa fasaxii jaamacadda u bedeshay maalin ay ku asteeyeen maalinta doomnimada. fikradani waxa ay ku fidaysay jaamacado kala duwan oo ugu dambeyntii noqotay dhaqan caadi ah. sanad kastana helayay goobo fasaxa shaqaalahooda si doobabku ay dalxiis iyo tamashlayn ugu ahaato maalintooda. maalintaas doobabka waxaa ka baxa dad badan halka qaar kalena ay ku soo biiraan doobnimada. maalintani waxay sare u qaadaa ganacsiga dalka Shiinaha. doobabku waxa ay isbedel ku sameeyaan guryahooda. waxa ay dhigtaan xaflado ay iskugu dhiirigelinayaan inaan la isku cidlayn doobnimada. sanadkii 2017 Alibaba oo ah shirkad online wax looga gato waxay maalintaas oo kaliya waa maalinta doobabka ah ay dhaqaale ka heshay in ka badan 25 bilyan oo iib ah. horeyna ugama aysan dhicin iib noocaas ah. sidoo kale waxaa ka faa'iida maalintan baararka, hoteelada iyo goobaha macmacaanka. dabaaldega maalintan waxa uu gaaray qaaradda Aasiya oo dhan halka dalal Yurub kamid ah uu gaaray fikirkan. haddii aad halkan soo gaartay fadlan u yeer saaxiibka doomnimada ku raagay oo u hambaliye maalintiisa.